السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي qaaliga ah soo dhawaada meel walba dunida dacaladeeda ka joogtaan waa walaashiin halka Nuura ku soo dhawaada halka Nuura Channel. Asxaabay maantana maxay nooga shidan tahay chicken wings ma la dhahay chicken wings ay nooga shidan tahay ay ka soo dooranayna insha Allah. Asxaabta qaaliga ah waxaan dhalad ku haystaa waxa way jeel kala duwan aad u badan ma sha Allah oo isku dardaray inaba caadi maaha abu dhanaan oo dhan ah meeshaas isku geeyay bisbaas baa ku darsaday bisbaas gaduud ayaa ku darsaday laakiin lix nooc oo kala duwan oo waxa waaye dhanaanka ah kan leenta hadihin wax walba oo chicken lagu darsado oo suuq yaala ayaa meeshan ku jiro wax ka maqan ma jirto haba yaraatee. So insha Allah waxba hadalkeeda ku daalinin saliid ayaan ku darsanayaa meeshaan arkaysaa 3 qaado oo yogurtna waa ku darsaday asxaabay waa la qasayaa ma sha Allah inay is dhex gasho oo aad isku dhex gashaa loo baahan yahay fahanteen si heer sare la isku dhex gelinayaa insha Allah. Kadib waxa ku jira firfir oo yogurtka wuxuu leeyahay maaha firfir cad u leeyahay so firfirkaas ayaan ka bixinayaa inaan ka wada safeeyo ayaan rabaa ka bixiyo firfirkaas ma sha Allah. asxaabay chickenki waan soo dhaqanay halka bunooyil aluminium kaas hada chickenka ku jiro ayaan ku karinayaa isla chickenka hadana because weelal badan igu suqban marabo baadeen marka asxaabay hadan waxa soo qaadanaynaa waan qasray waan diyaarinay afaarahaas so afaaraha ka dambeeya waxa waaye chickenka soo qaadanaysaa dhac waa ku ridaysaa ma sha Allah waa dhex gelinaysaa waxaas alaabtaas dhan waxa la rabaa jirka dhan uu ka dhuuqo uu ka galan fahanteen say tahay jirka aga gala insha Allah. Markuu jirka ka gala waxaan sameynaynaa hadana insha Allah bidnilaahi kariim saxankii waxa soo qaadanaynaa aan ku gadisan lahayn for inta horta gadiska gaarin asxaabay waxaan waa la isla dhigayaa 10 minutes inay isla yaalaan waa fahanteen because hadii 10 minutes ay isla yaalaan waxay dhan uu dhuuqayaa chickenki jirku ka galayaa ma sha Allah. soo tijaabiye ma sha Allah ku darsada yogurtka anigoo in la tijaabinayaa so asxaabay daboolka ayaan ka qaaday hadan ku soo noqday 10 minutes kadib saxankii aluminiumka aan ku karsanayaa soo qaatay waxaan dhan waxa way shug lagu siinaa fahanteen shug lagu siinaa ma sha Allah. so hadda ujeedaan aluminiumka ku shubay waan ku diyaariyay hadana halka iyo waxaana keentaan xaqii oven ayaan ku karinayaa aniga saliid kale kuma daraayay saliid inta yar taheedo ku dhex qasay qudaarta oo kali ayaan ku darsanayaa so asxaabta qaaliga waa kana waan soo qaaday chickenki ovenka ayaan qalow siiyay sa arkaysaan soo mujeedaan ma sha Allah ovenka wuu shidan yahay wuu ku jiraa ma sha Allah. asxaabta qaaliga waan ku soo noqonay waa kana waa furan ovenki waa ka soo saaranay chickenka anaga aan ka soo baxsanaynaa wuu kaaray sa arkaysaan waa inaba caadi maaha waxa way saliid yareed ba soo maaxatay oo ka soo baxday sidiisi kala ma sha Allah ma noqonin adeeg chickenka dabka ku daaha wuu adkaanaya sooma ma sha Allah soft asagoo aan ka dajiyay oo inaba caadi ahayn gartaan asxaabta qaaliga. asxaabay channelka subscribe-ka dhac noogu siiyo chickenka oo la soo riday oo saxan lagu soo riday waa ganaadeen halka Nuuray wareejinaysa oo indhihiina loo idin kaga dharjinaa insha Allah. channelka daawanaysiin waa halka Nuura Channel subscribe-ka share-ka commentiga walaalahaaga la wadaag insha Allah ma sha Allah. soo dhawaada ayaan leeyahay halka channelka daawanaysiin waa halka Nuura Channel asxaabay waxaan isku ognahay qeyr iyo bash iyo barwaaqo iyo subscribe-ka iyo share-ta iyo commentiga insha Allah. inta haysan in Allah siiyo inta haysatan ana ka mid nahayna Allah noo barakeeyo oo noo wadi insha Allah. asxaabta soo dhawaada anaga masuugiina anaga baqaylina subscribe-ka channelkana wuxuu rabaa kor in loo qaado Soomaha qofka dooro socdo hore u socdo dhaha waa la dhiirigeliyaa asxaabay soo dhaqsada hadii insha Allah soo yaaca hal idin arko chickenkaana nala soo tijaabiya nala fiiriyo aduu Ilaahay yiraahdo inta wada soo noqonayna anagoo nabad qabno iyo idinkoo caafimaad qabo ma sha Allah saas ayaa iskaga tagaynaa.